annagana ka xildhibaan ahaan waxaanu insha Allah tacaala ballan qaadayna inaanu jacayleedeeda uga adeegno waxaa habeennimadii xalay laga daafuray gudaha magaalada Boorama meherada Ajmal Abaya oo si casri ah loo qalabeeyay isla markaasina aad ka helayso cabaayado toobab haafaf shaadhadh saraawiil surwaalo udugyada noocyadiisa kala duwan sida cuudadka iyo cadarada iyo dhammaanba agabka haweenka meheradani waxa ka hirgelisay magaalada Xamda Maxamed Daheeye waxaana si wada jira xariga uga jaray isla markaasina ka soo qayb galay hadaladana ku kala dambeeyay maamulaha wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee gobolka Awdal Cabshakuur Xaasi Barkhadle Askooray xildhibaan Cabdilaahi Xuseen Caateeye xildhibaan Axmed Khayre maamulaha Alaqsa Secondary School Professor Axmed Xasan Nuur iyo mas'uuliyiin kale iyagoona halkaasi uga duceeyay mulkiilaha meherada Xamda Maxamed Daheeye soo dhaweeyay meherada caawa taariikhdu tahay 21kii bishii 8 2021 waxaynu xariga ka jaraynaa ama nudaah furaynaa meherada magaceega la yiraahdo Ajmal Abaya oo ah meherad dharka dumarka u khaas ah oo runtii si fiican loo soo agaasimay si fiican loo qurxiyay dhammaan aad ka heli karto dharkii dumarku u baahnaayeen noocyadiisa kala duwanaa oo dhanba meesha ku dhan waxaynu bulshada ugu baaqaynaa leenahay bulsho inaad nala soo aragtaan kuna xidhnaataan hadalka kaliya aadan wuxuu noqon doonaa inaynu u ducayno meheradan maadaama aanu wanahay wasaaradii maamulaha wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee degmada Boorama waanu ducaynaynaa waxaan leenahay Allah barakeeyo ilaahay baa mahad leh suurta geliyay in meheradan Ajmal Abaya iyo Ajmal Collection labada meheradood in caawo 21 bishii 2021 in la furo suurta geliyay ayaa mahad leh sidoo kale waxaan mahad celinaynaa fikirka wacan ee ay keeneen ganacsatada cusub ee soo koraysa runtii markaan saa meherada u eegay waa meherad nooceega ku cusub yahay magaalada waxaan rajaynayaa insha Allah haddii la yiraahdo bulshada reer Awdal khaas ahaan reer Boorama inay ku xirnaan doonaan waayo meherada haddaynu la furo waxay soo kordhisaa bilic waxay soo kordhisaa in qofku wuxuu u baahnaa uu helo waxay soo kordhisaa suuq marka meheradii aan furnay haddaan ku xirnaan weyno intaasoo dhanba waa waayna sidoo kale anaga ka dawlad hoose ahaana meheradaha la furay dakhliga kor noogu qaadaan oo sanadkii baan liisan ka qaadnaa markaan balyeyn iyo duco waxaan hambalyeynaya walaashay Xamda fikirkan cusub ee degmada ku soo kordhisay waa dharkii haweenka oo aad u qurux badan aadna u asturan runtii intaan meesha taagnaaban isha la raaciyay runtii aad baan u soo dhaweynayaa Allah barakeeyo walaashay Allah barakeeyaan leenahay magaceega basaan u fahmay Ajmal Abaya Ajmal Abaya ugu qurux badan baan u fahmay macnaheedu inay saa tahay ee Boorama waa laga heli karanay magac daray waa luqada Carabiga Ajmal marka waxaan leenahay inanta awgaan u ahay Xamda Maxamed Daheeye meherada furta waxaan leenahay markii labaad Allah barakeeyo ganacsiga lagu faa'iido Allah ka yeelo ku moogtay umada waxtar Allah ka yeelo dadtan had iyo goor ay noqoto meherad had iyo goor adeega ay bixisay u badan yihiin adeega siyaasiyiintu inay jacaylkooga keenaan oo uga adeegaan oo insha Allah tacaala keeni doona oo ku xidhnaan doona waan kubcinaynaa waxay meheradan runtii ka qayb qaadanaysaa sida xildhibaanku soo sheegay bilicda dhaqaalaha horumarka quruxda intaasiba waxay u baahan yihiin runtii in la dhiirigeliyo waanu dhiirigelinaynaa ka dawladda hoose ahaan waanu soo dhaweynaynaa waanu ku hambalyeynaa ilaahayna ha barakeeyaan leenahay Suxufi Cishqi MMTV magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal